Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kuna soo dhowaada xarunta waxbarashada ee xumartijar.com. Maanta waxaynu halkan kusoo qaadanaynaa barnaamijka koowaad ee haddii kombiyuutarkaagu cuslaado oo uu ku dhego website-yada kuu furan mid ka mid ah ama dhammaantoodba haddii uu ku dhego oo aad haysatid fursad yar oo ah inaad soo kicin kartid barnaamijka loo yaqaano Task Manager oo ah kan lagu xiro wax program la yiraahdo dhammaantiis oo kombiyuutarkaaga ku dhego. Task Manager waxaa lagu xiraa wax walba oo kombiyuutarka markaas saaran oo shidan ayaa lagu xiraa oo waqtiyaari kuu siinaya inaad degdeg ku xiri kadho. Haddaba waxaa haysanaa laba wado oo kale ah in Task Manager aan isticmaalno ama command line, labada midkood. oo command line waxaa inoo siinaya fursad khaasatan run programka la yiraahdo run oo aad ka helaysid mar walba kombiyuutar walba aad isticmaalayso. Start menu-ga ayuu ka mid yahay, ayuu qayb ka mid ah kaga jiraa. Aan ku bilaabno Task Manager. Haddaad isticmaalayso mouse-ka kombiyuutarkaaga ama kan lagu tilmaamo kombiyuutarka shaashadda markaad isticmaalayso kombiyuutarka kan wax lagu tilmaameedsado ee mouse-ka loo yaqaano qof walba garanaya. Adoo isticmaalayo kaas waxaad samayn kartaa qaybta ugu hooseysa kombiyuutarka ee haddaba aad arkaysid mouse-ka inaan ku dulhayo ama af Soomaali ahaan aan ku dhihi karno tiir hoosaadka ama Task Manager English. Adoo jooga ayaad ku leedahay right click, dhanka bidix ayaad dhag siinaysaa. Waxaad dhag ku siinaysaa Task Manager oo ah qaybta laga maamulo wixiiba programa oo furan. Badanaa wuxuu ku furmaa application process-na waa haddii aad horeyba usii gashay oo mar hore wax usii xirtay. Laakiin applications ayuu kombiyuutarada badankooda kaga beegan yahay. Haddii uu furan yahay wax website ama wax programa waxaad halkan taskiga ka arkaysaa wixii furan oo dhan. Hadda waxaan furay Outplank website baan furay. Website-kii haddii uu ku dhego waxaan halkan ka arki karaa in ay ku qoran tahay running kaas meeshii ay ku qoran tahay beddelkeeda in wax kale ay ku qoran yihiin oo aanay running ba ahaynba. meeshan running haddaad ka weyso micnaheedu waa uu ku dhegay website-kaas, istaag buu noqday matalan. halkan aad ka dareemaysaa si aad tallaabo uga qaado website-kan aadan xiri karin oo exit kaa yeelinin. waxaad samaysaa right click ama dhanka bidix ku kordhe mid ka mid ah waxyaabaha ku dhegan ee aanan running-ka ku tusinaynin. right click markaad tiraahdo ama dhanka bidix aad taabato waxaad taabataa go to process. badanaa dadku waxay taabtaan end task oo halkan ah, laakiin wuu kusii dhegi karaa. badanaa waxaa ka wanaagsan ikhtiyaariga ah go to process. wuxuu si toosa uga kordhacayaa faylkii markaas shidnaa oo lagu magacaabo iexplore.exe. si aad u jeedid username-ka uu kombiyuutarkaagu haystana waa administrator, halkan aad ka ogaan kartaa. CPU-ga uu isticmaalayo iexplorer waa 00, hadda waxba ma shidna. memory usage-kiisana waa halkan virtual memory. marka waxaad tiraahdaa right click end process, dhanka bidix end process, ama keyboard-kaaga isticmaal oo taabo delete. keyboard-ka matalan wuxuu egyahay keyboard-kaaga nuucuu raba ha ahaado. waxaad taabanaysaa control alt iyo delete. control alt delete markaas waxaa kuu soo baxaya Task Manager-kan oo aad halkan uga imaan kartid. markaas iexplorer ayaad hadda markaas delete taabanaysaa. iexplorer markaad kor joogtid delete haddaad tiraahdo wuxuu ku weydiinayaa horta waano ayaa ka hor imaanaysa faylkan ha xirin marka hore iska hubi. matalan haddii shaqo kaaga socoto ama message aad diraysay uu faylkan ka kooban yahay sida hotmail oo kale, ha xirin buu ku leeyahay iska hubi. marka haddaad no tiraahdo waa la cafinaya, faylkii lama xiraya. haddii aad yes tirahdana faylka halkaas ku gabagaboobay waa la xirayaa. midda labaad waxaad samayn kartaa delete adoon taaban end process ba halkan saaran, waa isku mid delete oo kale. yes haddaan idhaahdana faylkaas halkaas ku xirmay. faylkii hadda waa u tegay iexplorer. si kale wadada labaad ee aan haysano waxay tahay start inaan tagno
run aan niraahdo. Runka waxaan ku qoraynaa qoraal gaaban oo command line-ka baan hadda joognaa. Runta waxaan ku qoraynaa task kill slash f oo force slash im oo la sheegayo markaas programka la xiri rabo iexplore.exe waa faylka la xirayo. qaybtan waxayn ku siinaynin ikhtiyaara inaad hal fayl xirto. qaybtan waxay xiraysaa dhammaan wixiiba iexplore sheegta oo ay ka mid noqon karto haddii uu ku furan yahay daynile.com, markacadey.com, somalinews.com, wixiiba website hal mar buu xirayaa. Mathalan BBC sidoo kale wuxuu dhan wuu isdaba qabadsiinaya sababtoo ah iexplore waxay ka kooban tahay website oo dhan. iexplore waxay caawisaa website oo dhan, markaas waxay furtaa wixiiba website. iexplore waa internet explorer-ka desktop-ka ku saaran buu iexplore ka xadfan yahay. marka haddaan qorno task kill space slash f space slash im space iexplore.exe micnaheedu waxay la mid tahay xir wixiiba explorer ah, wixiiba website markaas shidan. dhammaan website-yada waa la xirayaa. wixii culays ay ku gaayeen halkaas aad ku weynaysaa. okay baa inoo dhiman. marka intaa aan qorno waxaa soo baxay window yar oo cmd ah ama dos ah u taqaanaan, shaashada madow waxay xiraysaa wixii website ah. halkaas waxaa ku gabagaboobay wixii website ah inoo furnaa. aad ayaad u mahadsantihiin dhegeysigiina iyo daawashadiina iyo inta ka faa'iideysanaysa casharadeenna. insha allah casharo fara badan ayaan sameynaynaa iyo kuwii aan sameynayba. wabilaahi towfiiq, wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa bahda iyo warbaahinta Omar Teacher Education Center. Thanks a lot.